السلام عليكم ورحمة الله. علنا الله ونحرسته kala duwan oo waaweyn dalka ka soo qabtay waa ay ugu horeysay magaalada Muqdisho oo odageedii soo noqday muddadii uu joogayna la wada garanayo horumarka iyo maxaan ku yiraahdaa wanaaga magaaladan ay gaartay iyo xaaladeedu sida isku bedeshay intii ka dambeysayna oo mas'uuliyado kala duwan oo wasaaradda kala duwan soo qabtay dalkaana oo mas'uuliyadiisa intii uu joogay in magac kula oo ahay علنا الله ونحرسته dhammaanteen Soomaali haddaan nahay inaan madaxdeena iyo mas'uuliyiinteena ixtiraam iyo qadarin weyn aan u sameeyno mar walba waajib ay nagu tahay duruufaheena iyo tabarteena iska yaraadaan marka aas qaran in loo sameeyo waa sidaas ku timiday علنا eheladii iyo qaraabadii iyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan samir iyo iimaan Allah naga wada siiyo isagana naxariisti janna Allah siiyo dambigiisana Allah dhaafo qabrigana Allah u waasiciyo annaguna muxuu ahay kuwii mas'uuliyadda marka ay joogaan sida ay ku saxan tahay oo maxaan ku raadahay kuwii ku guta annagana Allah naga dhigo waxaan rajaynaynaa in sidaan oo kale maadaama dalkeena meel kastoo caalamka aan malakumoodku nagu qaabilaba halkan naloo soo aan ku soo dhamaanayno dalka inaan u dadaalno qurxinno hagaajino Usmaan Maxamed Jaalle waayihiisii iyo markuu talada ku jiray dalkuna waa qurxoonaa waana hagaagsanay annaguna kuwii dalka hagaajiyo oo qurxiya oo duruufaha gaarka ah oo maanta ku sugan yahay ka saara Allah naga dhigo Allahna noo fududeeyo Soomaalidana bogeeda burcad Allah isu mariyo qalbigooda Allah isu sameeyo meel kastoo ay joogaan wanaaga iyo fiicnaanta iyo wanaag isla jeclaanshaha Soomaalida aan ka hadalno aan ku aanuna diyaar mar kale samir iyo iimaan naxariista janna Allah siiyo aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.